السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo diin haya dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo agaasimihiisii hay'adda Niza Fahad Yaasiin oo shirqool u dhigay madaxweynaha iminka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si loo fashiliyo dagaalka uu kula jiro kooxda Al-Shabaab Soomaaliland oo shaaca ka qaaday inaanay wada hadal dambe la gali doonin dawladda federaalka ee Soomaaliya haddii aanu ahayn mid ay Soomaaliland aqoonsi ku helayso kana jawaabtay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Uganda jab xoogan oo maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu gaarsiiyay duqeymo ka dhacay koonfurta gobolka Mudug iyo dawladda Soomaaliya oo diyaarisay ciidankii xoreyn lahaa degmooyinka iyo deegaanada Ruunirgood Ceeldheer Galcad Masagawa ilaa Ceelbuur iyo Galhareeri iyo madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo raali gelin ka bixiyay hadal uu horay ugu weeraray wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo dadka reer Galmudug qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka dunida TV oo diyaar garooba ayagoo dhameystiran isu soo noqod haboon daawadayaal ku soo dhawaada mar kale wararka dunida TV oo dhameystiran fadlan daawada si ay mar walba ku soo gaaraan wararka warbixinada iyo xogaha degdega ee dunida TV nagu soo biir oo rukuma channelkan oo subscribe saaro lana asxaabtaada mahadsanid aan ku bilaabay iyadoo dagaal iyo halgan adag ay ku jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya ka oo lagu baacsanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa wali waxa sii xoogaysanaya dhinacyada ka soo horjeeda halgankan una arkaya mid magac iyo maamuus gaar ah uu ku helayo madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laba kamid ah siyaasiyiinta ay sida weyn u xifaaltamaan Xasan Sheekh oo kala ah madaxweynihii sagaalaad ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo agaasimihiisii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niza Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa wararka iyo xogaha rasmiga ee la helaya waxay muujinayaan inay mar kale maleegayaan shirqool siyaasadeed oo ka dhana dawladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si meesha looga saaro guul ay dawladdu ka gaadho dagaalka ka dhanka Al-Shabaab maadaama Farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo xulfadoodu ay u arkayaan haddii Xasan Sheekh uu ku guuleysto dagaalka in uu keeni karo sumcad dheeri ah oo uu ka helo xoreynta dalka iyo in ay suurtagal tahay in mar kale uu kursiga dib ugu soo laabto oo la doorto haddii uu Al-Shabaab ka sifeeyo Soomaaliya si gaar ah Fahad Yaasiin ayaa qorshahan ugu xil saaran Farmaajo waxa uuna ka shaqeynayaa sidii loo kala furfuri lahaa qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka bulshada deegaanka iyo cid kasta oo dawladda ku caawin karta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab dhawaanahan waxa soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in Farmaajo iyo Fahad ay dhex marayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka waana tan keentay isbedeladii degdega ah ee hogaanka ciidanka xoogga dalka laga soo bilaabo isbedelkii taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka taliyihii lugta iyo taliyihii ku xigay ee isla ciidanka lugta dhammaan isbedeladaasi waxay ahaayeen kuwa looga jawaabayay kala furfurka cagajiidka iyo habacsanaanta ciidanka ka dhex jirta iyo ka hortagga shirqoolada loo dhigay dawladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh ee looga hortagayo guulaha ay dawladdu ka gaari karto dagaalka ka dhanka Al-Shabaab mar kale ayayse dib u abaabulayaan xulufada Farmaajo iyo Fahad Yaasiin dhinacyada iyaga ku xiran ee dawladda wali ku dhex jira si loo fashiliyo dadaalada ka dhanka ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Xasan Sheekhna uu ugu guul dareysto howlgalka uu hormuudka u yahay ee uu muddada labada bil ka badan hawdka ugu jiro sidii Al-Shabaab looga xoreyn lahaa guud ahaan Soomaaliya si gaar ah wajiga koowaad ee ku wajahan deegaanada Galmudug iyo Hirshabelle Somaliland ayaa si carale uga jawaabtay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ee uu ku weeraray Somaliland xukuumadda Somaliland ayaa mar kale ku gacan saartay inay dawladda federaalka ee Soomaaliya la gasho wada hadallo ku saabsan in labada dhinac ay dib u midoobaan arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac ee Muqdisho iyo Hargeysa Museveni ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X ama Twitterka ku sheegay in labada dhinac ay wajahayaan caqabado isku mid ah ayna u baahan yihiin inay midoobaan oo ay si dhab u wada hadlaan hase yeeshee bayaan ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Somaliland ayaa lagu sheegay inaysan wax qorshe ah ka lahayn wada hadallo ku saabsan dib u midoobidda Soomaaliya sida hadalka loogu dhigay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland xukuumadda Somaliland waxay cadeynaysaa in wada hadal kasta oo Somaliland iyo Soomaaliya u furma aanay ka wada hadli doonin midow balse ay ku saabsanaan doonaan sidii labadii wadan ee horay u midoobay ay horay ugu dhaqaaqi lahaayeen si kala gooni ah sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland sida darteed xukuumadda Somaliland waxay mar kale u xaqiijinaysaa midowga Afrika iyo beesha caalamka inteeda kaleba in aanay qorshaha ugu jirin wada hadal ku saabsan midnimada Soomaaliya dhinaca kale wafdi ka socda Somaliland oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda
ciise kayd iyo ganacsiga maxamuud xasan sacad ayaa ku sugan dalka Jabuuti oo booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana wafdigan ay la kulmeen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle booqashadan ayaa waxa ay ku aadaysaa xilli ay sii xoogaysanayaan dadaalada lagu bixinayo wada hadallada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland duqaymo iyo dagaalo aan kala joogsi lahayn ayaa maleeshiyaadka al-shabaab lagula beegsaday koonfurta gobolka Mudug saacadihiina dhaafay waxaana kooxda lagu gaarsiiyay duqaymahan iyo dagaalada xigayba qasaare lixaad leh oo soo gaaray maleeshiyaad ka tirsan kooxda oo ku dhumaalaysanayay dhulka hawdka ah iyo godad ay ka qoteen aaga deegaanka Shabeelow kooxda al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in ay isaga baxsatay godadkii ay ku dhumaalaysanay ee deegaanka Shabeelow kadib markii duqaymo culus arooryadii hore lagu garaacay waxaana ka horeeyay dagaal ay halka ku qaadeen ciidanka daraawiishta Galmudug iyo kuwa militariga Soomaaliya saraakiisha ciidanka ee ku sugan Shabeelow waxay xaqiijiyeen in duqaymaha lagu burburiyay goobihii ay kooxdu gabaadka ka dhiganaysay halkaasna ay jab iyo halaag culus kala kulmeen maleeshiyaadkii ka tirsanaa al-shabaab ee gabaadsanayay godadka iyo geedaha ku yaala koonfurta gobolka Mudug wasiir ku-xigeenka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya Al-Cadaala ayaa dhankiisa xaqiijiyay in la baadigoobayo firxadka kooxda kadib markii ay kala carareen oo ay jaanta rogteen maadaama ay u babacdhigi waayeen duqaymaha iyo weerarada ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo maalmihii ina dhaafay howlgallo isku mid ah ka waday koonfurta gobolka Mudug Shabeelow iyo dhulka hawdka ah ee ku dhow ayuu sheegay in al-shabaab hadda laga sifeeyay ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka iyo daraawiishta Galmudugna ay qarka u saaran yihiin la wareegista deegaanka caad dhinaca kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay iskuna dubariday ciidamo loogu talagalay in ay dib u xoreeyaan sida ugu dhaqsaha badan ugu laabtaan deegaanada iyo degmooyinka Ruunirgood Ceeldheer Galcad Masagawa ilaa degmada Ceelbuur iyo deegaanka Galhareeri maalmahan taliska ciidanka xooga dalka ayaa waday diyaar garow military oo xoog leh ciidamo u badan kumaandooska gorgor oo horay uga soo baxay deegaanadaasi ayaa la doonayaa inay dib ugu laabtaan deegaanada iyo degmooyinka ku yaala gobolka Galgaduud iyo sidoo kale xadka Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe saraakiil military ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in toddobaadkan la qorsheynayo in ciidamada xooga dalku ay ka dhaqaaqaan xeryahooda Muqdisho iyo qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ayna ku laabtaan deegaanada iyo degmooyinka kala ah Ruunirgood Galcad Masagawa Ceeldheer ilaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in degmooyinkan iyo deegaanadan lagaga soo baxay arrin la xiriirtay farsamo iyo xeelad military balse hadda ay dib ugu laabanayaan ciidanka xooga dalku ciidamada ka soo baxay magaalooyinkan aynu soo sheegnay ayaa toddobaad ka hor isugu tagay magaalada Aadan Yabaal halkaasi oo ay booqashooyin isxigxigay ku tageen madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre waxaana la qorsheynayaa in sida ugu dhaqsaha badan lagu xoreeyo dibna loogu laabto deegaanadii iyo degmooyinkii hore looga baxay ee gobolka Galgaduud madaxweynihii hore maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa raaligelin ka bixiyay weerar afka ah oo uu maalmo ka hor ku qaaday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac kaasi oo looga falceliyay siyaabo kala duwan Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale raaligeliyay dadka magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug oo qaarkood dhibsaday hadal uu yiri kadib markii uu ka laabtay safar uu ku tagay Dhuusamareeb waraysi uu bixiyayna uu kaga dayriyay sida uu u socdo dagaalka al-shabaab isagoo oo markaasi beelaha hawiye iyo wasiirka difaaca Soomaaliya ku eedeeyay hagar iyo in dagaalka aanay daacad ka ahayn madaxweynaha hore Maxamed Cabdi Waare oo ah ergeyga madaxweyne Xasan Sheekh u qaabilsan arrimaha xasilinta ayaa raaligelin buuxda siiyay wasiirka gaashaandhigga iyo dadka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb wuxuu sheegay sidoo kale inay la soo xiriireen malaaqyada beelaha Digil iyo Mirifle oo wasiirka gaashaandhigga uu ka dhashay Waare wuxuu sheegay inuu aad u ixtiraamayo dhaqanka Soomaaliyeed sida darteedna uu raaligelin ka bixinayo hadalkii hore ee uu ku weeraray wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawaneyseen Dunida TV